Waa qaybtii 25aad qisooyinka nebiyada. Waxay qaybta hore inoo maraysay Nebi Suleymaan oo dib isaga celiyay hadiyaddii ay soo dhiibtay boqoraddii Balqiis. Cirfiidkii muxuu yidhi, Nebi Suleymaan markii uu ogaaday inay soo socoto boqoradda Saba iyo qoomkeeda, wuxuu ciidankiisa weydiiyey ciddii keeni lahayd sariirta boqoradda. Kolkaas baa jin xoog badan ama cirfiid wuxuu yidhi, aniga ayaa kuu keenaya sariirta inta aadan ka kicin goobta aad fadhido. Keenisteeda awood badan baan u leeyahay, waana laygu aamini karaa. Nin cilmi u lahaa kitaabka Ilaahay baa isna yidhi, anaa carshigaas ama sariirta kuu keenaya inta aana isha hoos u soo celin ama aadan libiqsan. Markii uu arkay Nebi Suleymaan sariirtii oo dhinaciisa taalla, wuxuu yidhi, kani waa fadli Ilaahay xaggiisa ka yimid si uu iigu imtixaamo. Miyaanu ku shukrin mise waa dafiri? Kan mahadnaqa naftiisa uunbuu u mahadnaqay, kan dafirana nimcada Eebbe Alle waa mid ka kaaftoon oo deeq badan. Nebi Suleymaan wuxuu yidhi, wax ka beddela sariirtan, aan eegna inay garato iyo in kale. Kolkii ay timid baa la weydiiyey in sariirteeda ay tahay sidan oo kale. Kolkaasay ku jawaabtay, waaba isagii oo isaga ah. Waxaa la gartay inay tahay qof fikir dheer leh. Kadib baa Nebi Suleymaan wuxuu ugu yeeray inay Alle rumayso, qoraxdana ay ka mid tahay makhluuqaadka Ilaahay. Markaas kadib ayay rumaysay Balqiis, Allena u hoggaansantay. Geeridii Nebi Suleymaan. Maalin maalmaha ka mida Nebi Suleymaan wuxuu jinkii faray inay dhisaan dhismo aad u weyn. Nebi Suleymaan oo ku tiirsan ushiisa ayaa mixraabka fadhiistay. Isaga oo sidaa ah ayay naftu ka baxday. Jinka har iyo habeen way shaqaynayeen, mana ogeen in Nebi Suleymaan uu geeriyooday, ilaa ay arkeen ushiisa oo aboor cunay. Haddaba maxaynu ka baran karnaa qisadan? 1. Alle ciduu doono ayuu boqor ka dhigaa. 2. Makhluuqaadka oo idil Alle ayay u tasbiixsadaan. 3. Makhluuq kasta oo koonkan ku sugan kaalin buu ku leeyahay nolosha, sida hudhudka oo kale. 4. In dadka diin loogu yeero, qof kasta ayaa laga rabaa. 5. Jinka waxaa abuuray Allah subxaanahu wa tacaala, kamana xoog badna qaaliqii abuuray. 6. Jinka waxyaabaha qarsoon ma yaqaanaan. Hadday war u hayn lahaayeen, mar hore ayay ogaan lahaayeen geeridii Nebi Suleymaan oo hawsha adag kuma jireen. 7. Imtixaanka wuxuu noqon karaa hanti ama nicmad qofka la siiyey. Haatanna qisadii Nebi Ilyaas calayhi salaam. Nebi Ilyaas calayhi salaam wuxuu ka mid ahaa rusushii reer bani Israa'iil loo soo diray. Alle subxaanahu wa tacaala wuxuu u soo diray dadkii degganaa magaalada Bacalbak oo Shaam ka tirsanayd. Waxay dadkaasi caabudi jireen sanam la odhan jiray Baclaa. Ilyaas calayhi salaam wuxuu ugu yeeray dadkaasi inay ka tagaan sanam caabudista oo ay caabudaan Allihii koonkan abuuray, balse way beeniyeen rasuulkii loo soo diray iyo risaaladii loo soo dhiibay. Kuwii beeniya abaalmarintooda waxay la kulmi doonaan qiyaamaha markii la keeno jahannamo. Sidaas ayuu Alle qur'aankiisa ku sheegay. Suuratu Saafaad aayadda 123 ilaa iyo 128 wuxuu Alle yidhi, Ilyaas wuxuu ka mid yahay rusushii la soo diray. Waxaad xustaa wakhti uu qoomkiisa ku yidhi, miyaydaan Alle ka cabsanayn? Ma waxaad caabudaysaan Bacal, sanamka magaciisa, oo ma waxaad ka tegaysaan inta wax abuurta ka u wanaagsan? Alle ayaa ah rabbigiina iyo rabbiga aabbayaashiinii hore la abuuray. Way beeniyeen, waana kuwa la soo tubi doono maalinta qiyaame. Addoommaha Ilaahay ay wanaagsan mooye. Haddaba maxaynu ka baran karnaa qisadani? 1. Alle subxaanahu wa tacaala ayay u sugnaatay cibaado. 2. Alle ayaa abuuray wixii koonkan ku sugan oo idil. 3. Alle wuxuu badbaadiyaa addoommadiisa mu'miniinta ah. qaybtan halkaa ha inoo joogto. Soonka iyo acmaasha wanaagsan Allah inaga wada aqbalo. La wadaag qisooyinkan walaalaha kale si ay ugu cibro qaataan, adna aad ajar uga heshid, oo inoo sheer gareeya. Ramadaan mubaarak.